kulankani ayaa ahaa mid lagu dhiirigelinayay ururka haweenka degmada Kaaraan waxaana soo qabanqaabiyay maamulka degmada iyo ururka haweenka iyadoona ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada. munaasabada ayaa lagu muujinayay doorkii ay gudoomiye suldaano ku lahayd ama ay ka qaadatay horumarinta haweenka, bilic soo celinta iyo isdhexgalka arrimaha bulshada xilli maanta ay dalka dib ugu soo laabatay kadib markii howlo caafimaad ee ku tagday dalka Turkiga. qaar ka mid ah mas'uuliyiinta degmada Kaaraan oo ka hadlay halkaasi ayaa waxay ugu mahadceliyeen doorkii ay ka qaadatay horumarinta bulshada gudoomiye suldaano. maanta waxaa halkaan u taaganahay gudoomiyaha ururka haweenka degmada Kaaraan oo safar caafimaad dalka Turkiga nooga maqneed ayadoo caafimaad qabto maanta Ilaahay noo soo nabad celiyay farxadeena lama soo koobi karo. maam suldaano soo dhawow. salaan kadib waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan halkaan isugu nimaadno annagoo soo dhaweynayna maamada degmada maam suldaano waxaan ku leenahay soo dhawow. degmadu way ku xiistay waxaa halkaan taagan oo soo dhaweyntaada muddo badan diyaarinayay dadkii aad mas'uulka ka ahayd ee ururka haweenka iyo dhammaan maamulka degmada waxay ku leeyihiin soo dhawow. suldaano Axmed Maxamed oo ah gudoomiyaha ururka haweenka degmada Kaaraan ayaa ugu mahadcelisay maamulka degmada iyo ururka haweenka degmada soo dhaweynta iyo dhiirigelinta ay u sameeyeen. lama soo koobi kara dareenkayga aniga degmada Kaaraan maamulkeeda oo gudoomiyaha ugu sareeyo iyo haweenka shanta waaxood maxaan ku leeyahay dhalinyarada isboortiga abniga bis community-ka ciidanka degmada joogo kulli waxaan leeyahay boqolkiiba boqol ayaa mahadsantihiin. aniga Ilaahay waa isoo aruuriyay meeshaan tagana waa ku soo guuleystay. gudoomiyaha degmada Kaaraan Afshir Maxamed Maxamuud Afshir Kaaraan ayaa ku bogaadiyay gudoomiye suldaano horumarinta ee ka wado degmada waxa uu sheegay in haweenka ay yihiin laf dhabarka bulshada. ururka haweenka oo maanta iyo maalin walba u taagan laf dhabarkii degmada Kaaraan ah waxaan leeyahay mahad idinka gaarto maanta sida aad u soo istaagteen. maam suldaano waxaan leenahay alxamdulillah shukr caalami ilaahay hore waa kaaga barinay waana ku guuleysatay ilaahay subxaanahu wa ta'ala mar kale ku soo celiyaan leenahay insha Allah ta'ala caafimaad tiiran Allah ku siiyo. waa maamadii laf dhabarka u ahayd degmada Kaaraan dabcan waxaan dareemaynaa cidlo intay naga maqneed waxaan leenahay maanta farxadan kugu soo dhaweynaynaa soo dhawow. aamin xaaj xuseen maxamed raadiyaha telefishinka qaranka Soomaaliya muqdisho.